sawir keedu ku dhacay ag taagnayaan bana loo baabiinaya ilaa baan ku dhaarshay waxa sameeyay garan maayo Soomaydaan garan ilaahay baa ku dhaarta ummada Allah qabo ilaahay baa ku dhaarshay muuqaalkan like saar siina share garee foostooyinkii gudaheena lagu soo riixi jiray ayaa si toos ah u bilaabmay si aad wax kasta u fahanto muuqaalkan min bilow ilaa min dhamaad daawo reesha saxaab muuqaalkan dibad iyo dalbaarkii ku nool yihiin iga gaarsiin haddaan aad ahay reesha saxaabna adeero gacalay kuma quseeyeen muuqaalkani duuduub ku dhaaf soo dhawaada reesha saxaabo والله بنتها laga yaabo muuqaalka maamadani oo baraha bulshada aad uga hadli jirtay anu soo qaatay iyadoo maanta sidaas u hadlaysa oo sidoo kalena kana iigu dar Cabdiraxmaan Ciro waa ninka ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya laga qabtay Laascaanood qayb kamid ah reerkiis ah soo deynaya saaka qaybtii kale ee Habraawalna kaga dhex imanaya saldhigii Laascaanood muuqaalkaasi gooshaysa waxa ay baahisay 4 saacadood ka hor 2 saacadood ka horna waxa la soo baahiyay huwantu soo baahisay isla ereyga iyo afka ku hadlayso kuwa la mid ah oo sheegaya in maxaabiista la sii daayay ay ahaayeen ciidan qaran oo kuwa la sii daayay u badan yihiin garxajis oo yihiin habar yoonis iyo ciidan kale nafar habar jeclaa inuu ku jiro ah hooyada gudnimada inta leeg lagula dhaqmay iyadoo dhaqan iyo caado toona uu sanahayn oo maanta ay saaqira alla dhaqanka iyo caadada iyo gudnimadaas miyay reer kale lahaayeen ay ku calaacalayaan ay ku muxiboonayaan nacdaleed ku taalamiyaan idin dhahda ma waxaad ogaanaysan gudnimada ay leeyihiin ma taad ogaateen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meedadkoodii ayaa dogsoonay in laga xalafka kala dhacaayeen umul dhawi لو شدويدان ممل بأتيدين ساقو قاد كاد عنتان الماضي ريال هدون نوعدني هي إسكداي وحتى وصل بلا مطي سيدي دلني يقولني مدى اللي لقولنا قمايو يلا إنهين اللوج اللي حين لها إنك ليسكو كين اللي حين لها نعيز اللي بحبل اللي هي يجا ليسكو تبشة إنك يا ما تصير شرط طلبة ليسكو كين تبشة أي سيد أيده أقار إنك مدي سيد هدو سهر هايين إسلكو يدولن كوها سلو مالي لان إساب دولن كوها كلا تعلين لها جر حتى سا أنكو محابيس تودو نو ما حساب سنو طالن ما ينو هو مانتا garxajiso xidhada miyay sii daayaan maalinta ay qabteen haday hadalkay sheegayeen run ahayd oo idin kala jecel yihiin way sii dayn lahaayeen ninka garxajiska ay halka ku qabtaan ee ciidan aan babase gaari wata laakiin taa bedelkeeda gurigu garxajisu lahaa ee carigaabo ku yaalay ayaa duulimaad lagu soo qaado lagu qabsaday aqliyadiinu kaasa maanta aad wali sii taagan tihiin dad bahalaaw gudnimada nala dagaalamaya biin aqliyada maranka oo sareesha saxaaqo wallahi billahi waa ka xishoonaya inaan maanta isaaqina ayna sheegto faaladani maanta maxaa loo baahinayaa in isla dhexdeeni muuqaaladan laga baahinayo gabadhani amba hooyadani oo iyadu baraha bulshada caankayd oo in badan la arki jiray ayaa isla halka ay deganayd isla dawladda hoose iyo wasiirka warfaafinta ay halkaasi iyagu sida ay ku sheegeen dadka halkaasi degani ay dadkii halkaasi ay ka rarayaan iyagoo aan guriyo siinaynin kale ambabase aan uga sheeginba godoodkaasina uu ka kacay sidoo kale isla jaamac shabeel ay darkiiseen afku ku hadlayay oo media la soo gelinayay laba cisho ka bacdina meel hadalkayga ku qorto waxaad arki doontaa salaadiin iyo suldaamo sidoo kale isla afka daran ku hadlaya waa maxay sababta sidoo kale loo baahiyay isla 25 maxbuus ee lagu tilmaamay qabaylkooda tiradoodu 16 kamid ah inay yihiin garxajis 3 kamidina Ayuub iyo 2 Ciisa iyo mid Madigaana iyo sidoo kale habar jeclo hal nafara oo hooyadaasi duqda ah ay haysteen 2 sano gudnimada inta leeg ay ku sameeyeen sidoo kale ay calanka Soomaaliya lagu qasbay ilaa maanta oo ay ka degeen Muqdisho ay sidaasi u hagooganayaan isla maxaabiista baadiyaha laga soo qabsaday kale ku leeyihiin ciidan ayuu ahaa duqaasi aad ka muuqato wajigiisa iyo daadiisa odaygaasi intuu leeyahay oo baadiyahaasi isla sool bari isagu ku raacanay geeliisa oo harsanay geedasha oo halkaasi isirayri geelu intuusan ku caraabin ku yaranaso noocadaas oo midhan bay soo urursadeen maantana sidii kordhabka Soomaaliland
lagu isticmaalayaa isla dhulbahante saaqo maanta maaha markaa inaad muxibootaan oo tidhaahdaan waan gobonimo diriraynay oo soo qaadataan maxaabiistani oo beri hore Puntland dagaalkooda laga qabsaday oo sidan loo sharfaayay warma maanta ayaad isaaqo isagooteen in laydiin aqaano yuhuud argagixisa goormaad ogaanaysaan in laydiin yaqaano inuu dhiiggiinu xalaal yahay goorma ayaad ogaanaysaan in laydiin yaqaano inaad Soomaalinimo aad kala goynaysaan ilaahay abuuray mooye iyadoo aysan jirin shakhsi adduunka korkiisa ku nool oo dhiigga Soomaaliga qof kale ka saari karo oo Soomaali kala goyn karaya wax la yiraahdo Soomaali kala goynayana waa erey gaf ku ah iyaga kuwaasi iyagu maanta israadinaya aqli xumadeena maanta xataa xukuumadda dalka talada haysa waxay isticmaashaa ereyga ah isla ereyadii laga isticmaalay xamar oo dana siyaasadeed oo iyaga ku kalifay dartooda ay isticmaali jireen sida nabad iyo nolol ay iyaguna maanta waxay u isticmaalaan xukuumadda wadajir iyo waxqabad iyadoo marnaba aan weligeed lagu isticmaalin Somaliland olole mooyaane isla ereyga ah xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland laga oran jiray amba xukuumadda Somaliland ay maanta waxa la rabaa sidii shalay toole garxajis u duloobay ee loo duleeyay ee u qaateen aqliyadii ahayd isla isaaqba idin gumaysta sidaas la mid ah ayaa habar awalna la rabaa maanta in ay u duloobaan u gumoobaan war hayeelina rashaq isaaqow war haw noqonin cadowgiina codbaahiya kun iyo kow jeer buu idin sheegay nacdal baa idinku taalamiyeen idin raahdaa nacdal miya war kala garta maalinta la isayo iyo maalinta la isqaban karo iyo maalinta ay dagaal dhinac loo wada jeedsan karo maanta oo kala maahan iyo maalmo hore adkaayo kale oo ino soo maray may ahayn in marnaba isaaqnimada hoos looga daadego la isku muuqdo huwantaan watu dhashay ergagixisada rashaq isaaqaa qaadku wax dhimay maanta foostooyinkaasi ku riixaya TikTok-ta والله وبلا والله ساعات إذا هالله وحايستا وهالله هبر والبالو ضلها وتعيدا كذي أنا للسودين يا عيدا بمشي السوداي نعرف بايدي كنت على ميدي لا وحنا عقليته ده هركي تكتك والمقاد كان عطان مقرور وحبا الله يدي كنت رأيه سحر ميا الله يدي كنت رسولي هيدي الإساقة وإنتي واتكعقل الرونو يدي نفتشيو يمكن الله يدين لاقو وفهم بيجتيني الكل هاي فاكيدي كجي مرلول بانتا قولي سدو يدي ندعي نعلا بين كيالا يدي كسارة فاكيديا ما يتحصل ربطين عن ذي لحظته ونلبين أنا الرجل هنا سي ورسومالان تاني يحتاج شيء إنسان أنا جا وسنال كان نوردين نيو إنسان لمدينة هذا روق عليه شربته ريركا مرنبا هكو عيارنا ورسومالان والسوماليلا ورشرفتي ويا شنو دنتنا هذا روق عليه هنقد لنا ورشرفتي السمعة دان وكل من المقعين وكل هين الصومالين وقردك كده هين نقد لنا أو هين نقباس كلاديننا وهذا إلهي قرنا إنسان أو إذا كويس كم بوغموغانينا وريال با قرن كيد منا يكوع محافظ كيعسو كلها ما يمكادر تنابيه موسى قرنك إلا ما به مسوي سحفي إلا قيامه ما أنت حتى أنت مركو أديركينو حكومتها وأدير مواطنين يالباتيدين ميا وأدير وقعليا وحول بينا نسكلوين من ورقرن ماذا Somaliland ربع هاي النجاح هاتو ورون هاي النجاح هاتو وقد يدينين وكم يدسنين هالكين وكل نوعية أحيد أين وأدير وقعليا لو ودي منه وأص سيدو كرنا aynu noqono sida bahaliintaasi ay yihiin ay bahalnimada leh noola dhaqmayaan oo bahal aynu noqono gobonnimadan iyo waxa la sheeganayo waan gobonnimo diranaynaa waan gobonnimo dagaalamayna waan gobonnimo hadlayna halka iska dhigta wartooda dhilada kooda sheeqaata hagaagsan taqaadka cunto ka cuna ka biyaha ku maydha noocdoodu gabigoodu way ka siman yihiin adiga nacaybkaaga adiga ma kitaab gaar ah kuugu qoran inaad markaa adigu isfarfadhooda isriyeeto kuuma qorne dhinacu wada jeeso awiyasheen waxay ku guuleysteen maalintii guuleysanayeen ay faqrish ka celinayeen
mid bay ahaayeen dee kooda waalan iyo kooda caafimaadka qaba mid bay ahaayeen taasaan maanta anigu aan u baahanahay markaan ibnu xareesha isaaq xalaala aan ahay war isaaq maalin kala guru leeyahay isaaq maalin la kala guro kala gurkiisaasi uusan dhibaato keenin buu leeyahay oo ah maalintaysan colaadi jirin isaaq duulaan aan lagu ahayn ay doorasho jirtay iyo waxyaabo la kala riixanaya daynaga dhexdeena aynu habar iyo waxa kala riixanay la oday iyo taasi waa xaq waa caadi weligeed baa socon jirtay laakiin qarannimada Soomaaliland oo aabaheed lagu wasaayo yaan qaarkiina difaacinka aabihii ku wasaaya qarannimada qaarkiina aysan duulaan ku noqon isla ka adeerkii difaacaya warka adeerkii difaac war adeerka qarannimada haduu ka tanaasulay ha ku difaacin war adeerka haduu ku iibsaday war adeerka haduu qarannimadii iibiyay muu iibin reer gaaree dhamaanteen buu iibiyay maanta cambaha kala jirina jilicsantahay halka aqalka biyashiinaha eegay inoo soo dhex fadhiya haduu maanta Somaliland uu burburkeeda uu ka shaqeeyay garxajis burburkooda kama shaqeyn habaroo burburkooda kama shaqeyn reer kale gaarana burburkooda kama shaqeynay dhammaan inteenaasi Somaliland ku nool ee nabadda iyo sharafta iyo sumcadaasi 35 sano ku noolaa ayuu aakhiro u dhaadhiciyay u dhabarka uu ka jabiyay gudnimada inta lagu sameeyay ee ah in maxaabiis aan ogolayn calankaas nacdasho ku taalo ee halkaasi ka aragtaan loo hubiyay iyo gobonnimadii ay sheeganayeen inay lahaayeen maxaabiista gobonnimada la dhaqanaa matana gobonnimada 2 sano ayuu dhaawac ku dhaxaha isla afarta darbi ee laas caanood ku yaala cidiyo sidaas ay ugu baxeen kuwaas gobonnimo sheeganaya wallahi waa billahi waa tallahi waa bahalo kun iyo kow jeer bay bahaleeyeen oo anigu horano aanu yaqiinsaday mulbaan leeyahay loo shadhowa ha noqonina umur reeshaqi saxaaqo muhibbadani iska daayo war waxaad ogsoonaydeen in maxaabiistii in ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meydadkooda dhagax afka sidaas loogala dhacayay dumar ay ka dul mashxaradayeen oo naasiif taba ay la dhacayeen meydadkaasi la ilaaha illa Muhammad rasuulullah oo yahuudda iyo adiga ay u siman tahay oo yahuudda ay ka jecel yihiin iyo inay naarta galaan ay ka jecel yihiin inaad noolaato Soomaaliland ixtiraafisho dawlad dhamaystiran ay noqoto goormaad yaqiinsanaysaa heerkaas lagu la taagay aniguna waan gobolnimada dirirayaba taagantay abaha caqluqaadka ka was war fadhiga ka kaca oo wax iska celiya oo haday tahay af iyo adinba hal la midoobo waysan ahayn baalahaasi weligeenba siday doonaan ay naga yeelaan dhiigeena ha iska shaqaanay inagana qaybta calaacalka iyo laxanka calaacalka ayaa inoo balana wassalaamu calaykum